Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga ah channelkay kusoo dhawaada maanta waxaa rabaa inaan ila sheer gareeyo insha Allah qado dhammaystiran traditional Somali food waaye so basically qof walba way yaqaaniin suubiskiisa everyone a little different waaye marka insha Allah intaanan ila qaybsanaa maanta sidaan u suubsaday ila arka waa ansalaatadii mooskii mango juice iyo bariiskii iyo hilibkii waxa dhan insha Allah kow waxaa jeclaa inaan ka bilaabo inaan dhaqo bariiska kabacdi waa qasaa waa intii waxaas dhan kasii oo ka diyaarsanayo oo ii khasnaana insha Allah intaas kadib bataatada hadda fiiqanoyaa waxaan jeclahay farayska camal intii kasii hormariyo so waa fiiqa waa jarjaraa sina waa duwa insha Allah dhinaca geesa iskasii dhigaa kabacdi bariiskii wixii oo kale dhan suubsanaa insha Allah hadda farayska jarjaroyaa waa fareshka baca xag ii taalo oo qashinka isla markii ku shubaayo sidoo easy u noqdo meesha dhan trash iiga noqonin marka sidaas oo suubiyaa insha Allah waa kaas hadda bataatadii jarjaroyaa kabacdina waa duwa laba qayb oo kala bixinaa qaar half waxaan ku daraa color halfka kale insha Allah sidiisa ku duwaa cadki iyo colorka sidoo iskugu imaado insha Allah waa kan hadda waxaa fry gareynoyaa qaybtii cadka ahay wax yar isku size ma but it's okay it doesn't have to be perfect qaybta kale waa kanay halaha cadka duwaya sidiisa ahay wax yar cusbaa ku daray haddana kan jaalaha ama orange markaas saliidda also waxaa ku dubar waa basal cad oo wax yar color oo dhibac ku siiyey food coloringkaasina wax yar la gaduudinaa sidii oo bataatada kor ugu saaro wax yar sabiibna waa ku daray waa kan waa dhamaatay intaan marka geeskaas iska saara insha Allah wax yar kadib waxaan suubinaa hadda bariiskii hal xabo basal soo jarjaray tuun kaamoon ama xawaaji duudub oo la yaqaano waxa maaji khalfo heel waxyaalo kale oo caraf oo hindiga suubiyaan waa ku daray maanta waa iga dhamaaday marka intaana insha Allah isku daraa tuunta iyo kaamoonta iyo waxa isku tumaa insha Allah waa kana inta ku shubay intaana isku tumoyaa kabacdi saliidii dabkiisa oo karkare waxaa ku shuboyaa hadda basashii wax yar sida uu soo gaduuto oo caramelized u noqdo insha Allah bariiska macaan oo ka dhigaa markoo basashu ku badan yahay iyo caraftan waa ka wixii dhan hal mar ku shubay markoo basasha ready noqday waa kaas intaan hadda caramelized ku dhigoyaa caraf maasha Allah oo ka soo baxooyo bariiskii waa kan waa dhaqan yahay ready waaye asina waa kor shubay wax yar saan u gidgidina ku haynaa waa kaas markaas kabacdi maraqa oo waxaan ku daraa insha Allah oo hilibka ariga wax yar ku daray waa kaas markaas waa daboolaa waa kan ready waaye almost basashii waxaas dhan kor markoo imaado haddaa rabtid waa ka daadi kartaa wasaqdaas dhan haddaa rabtid waa ku dhaafee is optional because already bariiska wuu ka dhooqay يعني عرفتي wixii dhan woo galay already so color wax yarna waa ku daray waa kaas almost waa diyaar dhinacan kalena hilibka ariga wax yar ii fuulo oo xawaaji basbaaska crushed iyo cusbo iyo waxaan ku daray basal caleen basal iyo waxaas asina waa ready insha Allah hadda waxaan suubsara waa fishkii tilapia fish
gobol u jarjaray waa kaas markaasina fishkii waa diyaar waa soo dhaqay clean waaye marinade ku soo biraba insha Allah marka hadda waxa olive oil waaye wax yar ku shubay baaquligan ka bacdi olive oil waxa ku kordaroya lemon and pepper and paprika basbaaska oo waa kaas oo gaduudka optional waaye haddii oo kuleel rabin muku darsanaysa micnaha haddaa u baahneen kaas khasab ma aha ka wada basically cusba ku daroya also xawaaji waa kaas ka bacdi waa isku qasaa insha Allah fishka korkiisa marina 20 minutes camal sugaa markaas akaas fishka rabaa inaa korkiis ku shubo si fiican isku gaarsiina insha Allah oo si fiican u marina waa sidaan ku soo bixi 15-20 minutes camal hadaa sugto okay waaye also kabsar caleen iyo tuna isku soo tumay korkiis ku shubay skillet panka wax yar saliid ku daray and then olive oil waaye by the way as you can see ma fry gareynoyi grillna ma aha soo saliidna wax yar ku shubay marka inta maraq camal oo yeelanoya that's when it do different wax yar usoo bi maanta had koorasaan usoo bi macaan ahayd tilapia fish skillet camal oo usoo bi marka kor basala ugu shubay kabsar caleen kale tomatoes basbaas cagaar oo gobol yeeris soo gooyay intaas kor iskugu daray dhinac meeshana waxa ay taalo shatiin raqay aan ku subsaday waxa isku daray 2 xabo oo yaanyo ah 2 xabo timir gobol basal ah 1 xabo tuun gobol yar oo barbarooni ah intaas isku shiiday yaan shishiida ku daray raqayga madowga ku daray iyo raqay fresh ah cusbo yar basbaas cagaar iyo basbaaska gaduudka baa ku daray oo budaa ah